dhegaystayaal ku soo dhawaada sheekadii taxanaha ahayd ee Dawo Jacayl waa Dooq. qaybtii lixaad ee sheekada waxa ay noo joogtay mahana jacaylkaada mise waa ku halaagsatay. saaxiibay hanashe iska daayay halaagaa sheegaysid ayaaba i qabsaday kulankaas inuu iga fogaado maahane iguma soo dhowaan. saaxiib maxaa saas ugu hadlaysaa barjilaaca iska dhaaf is adkee waad helaysaa nidaadana khayr u sheeg. saaxiibay kolay wixii ii qoran ima sheegayaan. waa run saada laakiin qorshe ayaa noo hayaa oo aan jacaylkeena ku heli karno. saaxiibay waad iga farxisay qorso noocee ah hadalka iisoo dedeji. saada waad ogtahay nolosheena sidii silsiladii inay iskaga daba wareegsanayso micnahayga haddaan hadalka kuu kala dhigdhigo adna mukhtaar iska ayaad jeceshahay anna kaniif saa ogtahayna nooma soo jeedaan marka qorshahayga aan ku soo jiidan lahayn ayaa noo hayaa. maxaanay ii sheegno waan u dhararayaaye. okay saara ka waran haddaan labadooda dhulka la goyno oo aan mukhtaar saliga usoo duuduuba adna kaniifa kaba la-aan soo dirtid. alla waa arrin farxad leh laakiin sidee noogu suurtagelaysaa. taas ka seexum ani mukhtaar waan ballamiyey. xaggee ku ballamisay. oo waxaan kaa iloobay biri walaalkayga ayaa imaanaya maxamed wiika jaamacadda ayuu ka imaanayaa xaflad ayaan dhiganaynaa marka kaniif xafladda ku ballami una sheeg arrinta. okay walaashay anaa wacaayo. saaxiib ha igu soo daahin farxadda xafladda ayaan rabnaa inaan murugo ugu bedelno. saaxiib taas anaa igu ogtahay ha ka welwelin. okay bay macaane. haatanna ku soo dhawaada qaybtii 7aad ee sheekada Dawo Jacayl waa Dooq. hodan gurigeeda ayay isaga noqotay saarana waxa ay guda gashay in ay wacdo kaniif isla markaana ay ku ballamiso gurigii saaxiibadeeda hodan birito. aan wacbal kaniif saaxiibtay waxaan ku soo heshiinay inaan sameeyo waay gabal aan waco. halo kaniif. halo assalaamu calaykum. calaykum salaam yaa wey. saara waaye. saara seeta ii warran baay. fiicana seeta adiga. sidoo kale anigana waa fiicana ka war caafimaadka adiga. waan ku fiicana maasha allah. alxamdulilah laakiin maanta waa isoo wacday maxaa jira maanta. maanta kaliya ma aragtay wax badan ay ku haminayaan inaan kusoo wacay. bis maanta marka aad baan ugu faraxsanaa wicitaankaaga maanta adiga kulleyta waa maalinta ugu horeysa isoo wacday laakiin in badan ayaan jeclaa inaan kulanno oo waqti badan wada qaadano ka waran adiga maxay kula tahay taas. dhib malan kale waxa jira wax kaare imaan koode marka waxa ayaan rabay inaan kuu sheego aniga. okay soo daa. abu waxa rabay inaan kuu sheego xaflad ayaan qabnaa biri marka waxa rabay inaan u imaatid. okay diyaar baan ahay aniga markastoo itiraadiyama waan ku imaanayaa anaa jecel markasta inaan kula joogo runtii marka xagee baan kugu imaadaa. haa waxaan ugu imaanaysaa waa guri hodan teed kale wax kale ayaan kuu wadaa waxaa ku siinaya jawaabtaada adiga sugaysa in muddo ah. maanta aad baan u faraxsanaa runtii wax malena inaa iraadaba cuntoo dhanba waa diidaya ilaa jawaabta helayo dhib male marka waa ku imaanaya guriga hodan mayaa. haa waa guri hodan waan biri 2 saac. okay diyaar baan ahay. okay bye. dhinkana ninkii mukhtaar iska ahaa keligiisa ayaa isla sheekaysanaya oo waxaa maalinta biri ah ballamiyey hodan mana haysto labis uu ku aado gurigii hodan balse waxa uu soo aaday gurigii saaxiibkiisa si uu dharka ka soo qaato mana oga kaniif qudhiisa in la ballamiyey midda kale ma oga saaxiibkiisa kaniif in jacayl galay isla markaana uu jecel yahay gabadha saara ah. wallaahi niyo daal bay ka daabaniyo waa rafaad laakiin birin xaafadda sanay ku eeday ana saan rafaadniyo dhar xitaa qaatan hayste maxaan sameeyay hada xaafadda iska eeday laakiin xaafadda intaan aadayna tii saaxiibkii eeday saaxiibkii dhar doonaya macnaha saan xaafadda dharkii aan ku eeday la doonaya waxa kala soo ma qandahay walaashina marka la way karo ana awal maalin hore $5 isu turtay kii biirku keen ana ku qabsan karo ana qotina saari karo marka saaxiibka xiniisan fuulay saaxiibkan iska eeday rag shaqadan oo saaxiibkani fay saaxiibaan waa fiicana sitay xaaladda ka waran. maasha allah saaxiibaan waa hadbi waa fiicana saaxiib caafimaadkii waa taam adiga waran. waa ku fiicana laakiin galabta goordama iyada waa xaafadda ugu timaana cagajidiisa saaxiib maxaa kugu dhacay. saaxiib xaafadniyo baahin waa sakaysa saaxiib sidii kale masaar faasana ogtahay in xaaladda ay sugan tahay marka adaa saaxiibkii soo aad markaniyo yani saaxiibka ma ahay wax kasto kugu soo dhacana anigu kala qaybsanaya saaxiibaan maxaa ku haya.
saxiib waxyaaba badan ay qabays reey horta biri meelina ay reey ballan aado in waxyaabahan dhar waan ka reey ku soo doontay mid kale caafimaadkaaga in ogaado baan waa iska reey maadaama saaxiibana iska sheegaysan numar walba macnaha in ka warqabo iska reey marka mid koodan ku inahay saaxiib horta in biri saaxiib qof baa la balansanahay saaxiib shuruur shaatin ay sii raasay oo hay ah ku eedo saaxiib wax kasta aan iga soo baatay ku diyaar way adiga ku dheh mid kale saaxiib maanaas martiin gurigaaga weey aniga saaxiibka ma nahay marka adigaas ka dhigin saaxiib maana wixii boorsada ku jira adigana waa ila leedahay runtii haddana waxa yaal kuwa cusub aan naftirkayga reey saaxiib maana magaalo ku galo laakiin dhimala kuwa kale way yeelan ayagana wada qaadanayna saaxiib maana kaba ma baanta ayaga niyo kawana wataniyo inkastoo ana ciid aan dareemayo laakiin xagaa hoosna ka daldalan saaxiib dhulkan dareemayo marka hadaa kuwa kale haysan ay ugu caawisan jeclaan lahaa meesha ku eedo dhimala marka saaxiib maana taas waa ku diyaar ugu loo ka qabin saaxiib maana biri adoo libisan waa tegaysa xafladda laakiin waa halkay saaxiib maana ayaantan arrimaha saaxiib maana sidoo hore way ka bedelanayeen saaxiib runta ku sheego saaxiib horta qofkii hodan ay isaragnay waxaanaha kulan macnaha aan weydiistay saaxiib horta xaafadeedii ugu ballamay xaafad baa ka jidhay waxa jiraan walaalkay baan imaanaya marka saaxiib halkaasna ugu taga rabaa biri 2 saac abu saaxiib waxa maleena arinteenu saaxiib markaan waxa maleena meel fiican soo maray xaaladeed runtii aan la tarkiyo saaxiibkii horta arrin baa jidhay saaxiib maana ku sheegin ina ku sheegaan maanta rabaan sheekada meesha ka cadeeyo saaxiib ma saaxiib isha wax badan bay qarqarin soo maleena saaxiib kullu niyada wax badan ku dugan ha saaxiib maana wax badan niyada ku dugan adigu ogtay saaxiib maana aniga horta saaxiib qof aan jeclaa maxay kula taadiyo taas this good aad buu wanaagsan tahay taas qof jeclaateen waan ku rajaynaa staan oo isu sheeko yiri xitaa qof waxa rabta jeclo laakiin isu sheeg ida wax jeclaateen staan ku yiri saaxiib saaxiib sida weeye qof baan jeclaadahay si qoftii waxyaalo badan baan dhex maray saxaawo hadda ma soo koobi karo laakiin dib baan kaga sheekeynaa in dhex maray saaxiib maana in badan baan rabay qofkaas wuxuu yahay inaan kula soo socodsiiyo runtii qof adiga aad taqaanina saaxiibow aniga jacayl weyn baana saaxiibow ila soo dirsay runtii saaxiib waa qof sida qofkaas qof aan aqaano is jeclaateen ba saaxiib ran yaab saaxiib waa qof ma isig saaxiibow والله صحيح وهذا دان كره تلمان دبا كاسينا انت اسمع قياس كري رنتي هرتا وقبر هرتا قفته هو صاحبنا قبرته اول ما حاج على نمي على لا صاحب صاحبي كلا لي رنت صاحب هاي غرغرني انا كفتها سلا ساعتستو انا سلا مره كاستبو ka socdayna mar wax dhaaday runtii hada ma jecla taatadis oo si marka waxay tan ka dhadhacsiina saas ma ana gabar ku yiri dhimala saaxiimaana hadana runtii tilmaanto ma kaasi kali laakiin magaciidan ku sheegay saaxiimaana ايش صاحبو adiga waa taqaanaa waa gabar badan la soo jidhay hodan saara maana magaceeda la yiraahdaa iskuulkan dhigata saaxiibaane woo saara qof aad u wanaagsan saaxiibow nin waartiinay saaxiib qofkaas inaan kala bixi doonto saaxiibow yaa laakiin saaxiib waa ku baatay saaxiib jacaylkayni aad buu ii qanciyay laftiisa saaxiibow saaxiib sida weeye wixii aniga qanciyay in adigana ku qancin doonaan waa u maleynayaa runtii saaxiibow waxaan rajeynayaa saaxiibow inaan jacaylka dhalka keeno saaxiibow ma saas kale baan kula rajeynayaa kol aniga xalfada dilayo waxaan noo laga waca u maleynayaa وكذا مركز صاحبان بريم حركيسنا سلا ويا قلبتي وانا بلمي يعني لما قف صاحبانا بلمي انا وصاحبان هي يعني لو اسغورنا وبلمي صاحب مركا ما waxa leedahay bari arintana soo gabagabeynaa waxa leedahay meeshaasan jacaylkeen marilkiisa la qaadi doona saaxiib maxaa filay sorta adiga saaxiib waxa filay bari ana jacaylka dhowr ku sidana keenid doona saaxiib anna sidoo kale ku rajayna saaxiibana saaxiib baarsiisay saaxiib saaxiibana saabada ku soo qaadi doona marka saaxiibana waa ku diyaar in waa kana qaado waxa iga baahnayd dhex gala saaxiibana adiga wixii ku qanciyo kala bax saaxiibadii xil saaxiibada ku garsoona saaxiib sidii way saaxiib laba hadaan soo qaado waan ku siinaya horta iga qabo kuwan taygana xataa ugu jira shaatiga waa wata kabihina oo kuwan saaxiibana laakiin saaxiibana tay ma xiraaqan birma daa xiraa saaxiib والله صاحبك هذاك لك فتح ابغى انا اسكو عيد وصح صاحب نودي بحر صاحب قول عمل بقول شر ما يساهمان انا كو خيري تاسنا runtii saaxiib sida weeye wax kasta waa la bartaa hadda aniga markii ugu horeysay galabtii aan soo qaatay arwaan ka soo qaaday waxay ahayd galab soo qaad dhamaad macnaha iid baa socotay waxa rabbi dhexdana dhogso hase yeeshee baalki waa soo qaatay meel ba saartay ilaa habeenkii la yaabsan waxa sii yeeli doontaa macnaheedu ahaan baa u qaadi doontaa meelka madaxa ku xiri doontaa hase yeeshee habeenkii waxa soo xasustay toona suuq weynay anigii subaxna soo qaatay surkan gashay laakiin saaxiib kadib maxaa dhacay saaxiib saaxiibana kadib waxaan sameeyay horta marka la bisanay kaliya guriga ku jira qolka hoos ma gacanta hase yeeshee baalka waa soo qaatay surkii maan ku xirtay waxaa sira baalka waa la isdhaafiyaa markaan isdhaafiyey baalkii waa igu soo dhooqsamaya ay saaxiib ka bacdina saan mar soo xiray waxaan baalkan saan haddaad dabcisid waa kaa furfuranya waa isku ceejiyey baalkii laakiin saaxiib waxay macnaha baalkan baa xoog badan wey dhuunta xarga oo kala jaraya saaxiib wallahi sida way saaxiibani markaan isku xiray dabada oo la sii baxay marba mar ay ismay xariqeero
runtii saxaabu baalkaas taariikh badan u imansiiyey qofkii ugu horreysay bari xataa haddaan ku sheego waa la yaabaysaa runtii anoon raga ah baa waxay u dhacday markaan dibadda ka baxay anina iska bilo iska ogtay guriga markaan kasii baxay xaafadaha ila degan waa artay gabadhii saan baalka ugu dhowrsan runtii wallaahi saxaabu baalkaas aad dhuuntii ugu dheganaa hadalka xataa way dhibaya saaxi maane gabar xaafadda ila degan baa si fiican isku naqaanay baa dhahay war maxaa ku dhacday maxay tamaanta saan labisisaana maxay tahay runtii gabadhii markay ii timi waxaan nin waxaan saakay macnaha iid u socday maogtay xaalkii si hore waa ka bedelan yahay hase yeeshee gabadhii waa igu qosashay war maxaa ku dhacay saakadi anigii horta waa isla qumanahay laakiin nin walba quminaysa qoorta sare anigu waa isla qumanahay runtii saxi markay aragtay qosol ba isla dhacday gabadhii ayadoo qosol leedahay laakiin aniga baalka ugu soo dhaqsamaya mar waa kasii dhacdeynaya ayadii waa yaabtay war maxaa ku dhacay saaka adiga maxaa igu dhacay saaka labiskii ma ku qoslaysa aniga waxaan isleeyahay saaka u labistay la yaabanta qoftan waa la cajibsantaaba runtii waxa dhacay mar sii cusay baalka inay naftii halis geliyaba ka bacdina gabadhii way fahamtay baalka inay qaabdar u xirtay way iga fudhay baalkaas anoon ragaaba waxa dhici kara inay gabar ii xidhaba saaxiib ka warantaas adiga saaxiib aad u wanaagsan tahay saaxiib aniga gabar ii xirtaa dariska uma joogin saaxiib loo digan xaafadeen agtida wallahi saaxiib markii saas markaa harayay runtii baalkii waa ku habeenayaa anaan surka kugu gelinaya ku habeenaa shaatigan kugu surayaa subaxdan isku soo gasho saaxiib ha furfurana ataa furu dhacday ka isku sidoo kale saaxiib